السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا أقول عبد القادر الإمام محمد. halkaad iga daawaneysaan waa qaliil la channel YouTube. asxaabta jumca mubaarak كل عام وأنتم طيب كل سنة وأنتم طيب leeyahay jumcaha awgeed maanta waad arkaysaan ma sha Allah imaamaddeeda jaqi ah qudbaan ka soo baxnay ma sha Allah masaajidka nagama fogo waa kana waa arteena alxamdulillah ilaaha ma hadle asxaabay labada maalmood jumca mubaarak idin soo dirin aan ku xumahay marka sida awgeeda karaab noqda ma sha Allah dunida meel walba ka joogtiin jumca mubaarak ayaa idin leeyahay isoo dhawaada asxaabay waa idin jeclahay mar walba waa idin jeclaan doonaa insha Allah ta'ala asxaabay bariga jumcada qofkii ay gaftay nasiib uma uusan yeeshan laakiin waxaan idin leeyahay jumcada dambo yeesan gafin ma sha Allah waa maalinta oo ugu qeyrka badan maalinta ugu farxada badan ya kulay sidaan wada ognahay waa la socotiin kulay adduunkana jumco in la laabayo waad ogsoontaana waa la socotiin Soomaa adduunka jumco maalin jumco ayaa la laabayaa sida uu la socdo waa faanteen oo malaa asxaabay marka jumca dambe yeesan gafin qofkii oo ka faa'iideystay ma sha Allah ya tusbixiisa qamiiskiisa jaka isku siiyo barfuunkiisa jaka isku siiyo labada shay oo ugu qurxoon maalmaha jumcaha waa inuu gashtaa asbayaha ma sha Allah maalmaha jumcaha waa in la isqurxiyaa ya sida wada arkaysaan hadda waa kana ma sha Allah waxaan idin tusayaa in sheeg asxaabteeda kale waxaan idin tusayaa in sheeg aad official aan arkaysiin insha Allah ta'ala haddana waa kana aad official oo waxaa nala joonin xulus oo in sheeg gaabow sidaad wada taqaaniin gaabow hore waad u barateen asxaabta haye aadan official qaliil teamka qaliil channel soo dhawow aadi idin salaamaya qaliil teamkiisa iyo dhamaan asxaabteena waa faniskana filmkiina ma sha Allah aad jumca wanaagsan way qurux badan tahay in la isdhawo jumca wanaagsan sidoo kale aad sharaf inaan u tahay inaan idin soo dirno jumca wanaagsan sababtoo ah muslimiintu waxay leeyihiin la yiraahdaa saddex ciid al-adha iyo ciid al-fitr iyo ciid al-jumca saddexdaas ciid hadda anagu isku bishaareeno ما شاء الله تاسو waxay muhiimad ugu weyn waxay tahay horta koob inaan ay sheegaan xoojino oo balaarino islaamnimadeena waxayna taas hoos u dhigaysaa ay sheegaan gaalada soo anagoo faraxsan qalbiyadeena isbaldegana hadii arkaan way ku khushuucayaan way ku xumaan laga yaabaan ay sheeg maanta jumca wanaagsan ay soo direen qof oo gaala inuu arko videoga oo ku khushuuco muslimiinta dhexdooda waxa taala bash iyo barwaaqo isiraado sida darteed diinta islaamka soo biiro dhamaan in qolyaha YouTube kana waxa looga baahan yahay inay soo sameeyaan jumca wanaagsan and even hadaysan awoodin inay video soo duubaan waxa wanaagsan inay qoraal ay soo diraan taas waa ay sheeg muhiim boonta kale ma sha Allah aad idin salaamaya waa ma salaam ما واحد وشكتا واحد كيلو أنا جا يشك حتى أنا ما أنت ماشي أنا أصعنا وشك بالأصحاب والله ما أنت ماشي أصعنا بجاجنا وانصارنا هي مال أذقوا واحد أنت نقول شيء كرمه واحد صوص يجيبوا بيجي أوين واحد حتى بإندي نذكر أركيس إذا كان أركضون بجاج كان لك الدجا تيار ذا الراعة وعلى الدولة تماشات ولكن كان لك الدجا يا رسول الله متغنى الفنان على سوق هذا كل شيء يعني كهر دعين أوكي وحصوص هذا وجي يوم أوكي جاو عند بلدين وكان أصحاب محط لهذا جاو كسود وكان كقبت كاميرا ذا أصحاب محط لهذا قليل التيم قليل هدي أد كميت هاي أنا هرت إني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة نتسدى وأركت جاو عند بلدين معلوم والبو جمعة إن أو إيشك أصحابته أو جمعة مبارك ليرة ويا بونتا سما ما شاء الله marka tusbaxa waad ka soo tagtay gaawo sida darteeda maanta waad dhaarsantahay nin culus baad tahay waa lagu ogsoon yahay xagga falooga waad ku dheeraysaa maanta laakiin kadis baan kaaga dhignay hoostan ka soo gelinay okay maadaama hadda bajaaj aan qaadanay xageen macnaa aan u sii soconaa aan u sii tamaashaadi doonaa insha Allah ta'ala hal iyo labo asxaabta إن كستي معلم والبجمعة نوتة هاي أصحابته أوكي وحن جعلنا هاي يشك جاو ما أنت حقين جعلنا أنا عدنا بس أفكرت وماشي عن سكو أفكرنا أنا يو أوفيشال يو قليل جاو
iisheeg tiim qalin loo kamid yahay waa saaxiibkeen nin culus weeye marka xaggee rabnaa inaan aadno ilaa iyo xamarweyne iyo dhulka beertan waan gaaraynaa insha allahu tacaala sidaad u tiri waaye insha allahu tacaala hadduu alla karaala noqdo okay asxaab fara badan oo igu xiran ayaa jirta tiim qalinla ka mid ah oo iga soo codsatay in reaction aan u soo sameeyo boos ii dhahorta camera ninka igu dhiib ii qabo horta waraysigan ka qaadina xoogaa yar mudan waxa ku soo dhawaata horta TV-ga oo waxa laga fiirsanaa qalin la janaal si fiican ma sha Allah asxaabteeda waan salaamayaa waan wada jeclahay asxaabteeda inta igu xiran tiimkeyga ka mid ah waa idin salaamayaa jimco mubaarak ayaa idin leeyahay mar labaad mar saddexaad intaba waayahay waxaan ku weydiinaynaa horta aniga tiimkaagan ka mid ahay oo ku xiranahay YouTube waan leeyahay sometimes waxaan akhriyaa commentiyadaada waxaan arkaa commentiyadaada codsiyo fara badan ayaa haddii ahaan lahayd noo soo qabay sheeg fanaaniin badan reaction ku sameey haddii ahaan lahayd challenge noo soo suubi haddii ahaan lahayd prank laakiin intaasba ma kaaga jeedo maxaa ugu wacnaa islaana wallaahi maadaama ii sheeg oo maanta jimco ay tahay hadda waxaan jeclahay sidaad wada aragteen adiga iyo saaxiibka gaawow maanta hal reaction inaan sameeyo waad aragteen maleeha dhegeysteedana maanta hadda aan ku guda jirno oon jimcaha khudbada soo dukanay reactionkaaseti suubiskiisa haddaan ku guda jirnaa isla saacaaseti intaan anaga dhaqaajinin ayaan soo dhigaynaa insha allahu tacaala hadduu alla karaala noqdo dhowr heeso ayaa lasoo dalbaday laakiin hadda hal hees ayaan ka sameynay oo shareek la yidhaaho waa hees maraykana oo Nick Nitoli uu heesay fanaan maraykana ayaa heesay marka asxaabta dalabkooda waa in loo tixgelishaa waa lagu qasban yahay maasha Allah maadaama tiimkeena ay ka mid yihiin hal hees ayaan u diyaarinaa hadda ayaan ii sheeg adinkiisa insha Allah anyway marka barangi way soo dalbadeen marka kale aadan official barangi bay soo dalbadeen marka barangigana sidoo kale haddana sida lamid ah waxaan jecelnahay in aan u suubino insha Allah tacaala barangina waa u suubinayna insha Allah tacaala heesa kale fara badan hadda ii sheeg haatan naqadka waa u soo dejinaynaa hadda dejiski ayuu ku guda jiraa insha Allah tacaala marka hawshu way wada soconaysaa insha Allah tacaala okay barangigana hadduu ahaan lahay ii sheegeen barangiga horta idinka soo codsaday barankiga waxaan soo dhigi doonaa hadduu magacooda nooma soo sheegay soo maaha barankil bay soo yireen laakiin baranki oo xiisa badan ayaan u sameeyay xiisa badan ma sha Allah okay barankiga hadduu ahaado isha call baranki ama hadduu ahaado real life baranki anyway magac baranki oo qurux badan asxaabta waan la wadaagi doonaa insha Allah weekend gudihiisa insha Allah sida iyo nabad